habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah caawa waxaan waraysi idinkaga haynaa wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday Somaliland amaanka xiriirka caalamiga ah iyo aqoonsiga ayuuna ka hadlay Suuriyaanka ayaa ku soo laabanaya guryahooda ku yaala magaalada Xalab oo dawladdu ay gacanta ku hayso balse 8 sano oo dagaal ah waxba uma aysan harin si nolol loo badbaadiyo iyo aragtida dhalinyarada tooreeyada laga soo ururiyay magaalada London ayaa laga sameeyay qalabka jirka lagu dhisto kadib doorashadii dhawaan ka dhacday jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa wafdi ay u soo dirtay wadankan Britain waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ayaan wax ka weydiinay arrimaha amaanka oo ay ku jirto xaaladda u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland Dr. Saad Cali Shire waxa uu sidoo kale noo faahfaahiyay xiriirka caalamiga ah iyo halka uu heshiiskii barbare ku dambeeyay ugu horreynna waxaan wax ka weydiiyay isbeddelka Somaliland ka dhacay wadada waxa ugu weyn isbedelay waxa weeye madaxweyne cusub ayaa imika yimi meeshii ka bacdi doorashadii 16 November طبعاً inkastoo xisbigii kulmiye uu yahay oo xisbiyahan isu bedelin haddana de madaxweyne walba wuxuu la yimaadaa barnaamijkiisa iyo waxyaabaha uu mudan iyo waxyaabaha soo dhum la yimaadaa iyo siyaasadiisa u gaarka wataa doorashadaas aad ka hadashay oo dhawaan dhacday oo xisbigii kulmiye uu mar kale soo laabtay xisbigii mucaaradka la tartamayay markii hore natiijada kuma aysan qancin markii dambana waxay yiraahdeen waan aqbalno dadkii iyo dalkeen u tanaasulnay marka dimuqraadiyaddii ma la isdhihi karaa xoogaa yar bay gadaal u dhacday maadaama sidii markii hore loo kala bixi jiray ma aysan ahayn wallahi ma lama oran karo runtii waxay wali astaan u tahay hanaanka dimuqraadiyadda maxay dhahdaa ku xididaystay Somaliland sabab la socotaba doorashadan waxay tii lixaad bay midna la isku ma qabsanin lixdaba caalamka iyo goob joogayaal keenay oo goob joog ka ahaa lixdaba wax la yiraahdo waxay ahaayeen doorashooyin xor ah oo nabad ah ay ahaayeen dabcan marka doorasho timaado tartan baa imanaya waa la iskhilaafaya dabcan waxay imanaya dacwad baa imanaysa laakiin marka u dambaysa wuxuu baa lagu kala baxaya nidaamka iyo sidii sharciga jira waa tahay dhawaan waxyaabihii dhacay waxa kamid ahaa in ay ciidamada Somaliland qabsadeen tukaraq meesha la yiraahdo marka maxaa xilligan ku soo aadiyay taasna warta ciidamada Somaliland meel ma qabsan xadkooda kamay talaabin sidoo la socoto Somaliland iyo Soomaaliya xad bay leeyihiin caalamiya oo lagu jeexay heshiis dhexmaray dawladda Ingiriiska iyo dawladda Talyaaniga waa la yaqaan xadkaas wuxuu yahay ciidamada Somaliland xadka imika waxay u jiraan ilaa 60 kilomitir bay u jiraan uma dhawaba tukaraqna waxa bay u jirtay 10 kilomitir oo kaliya halkii markii hore ay deganaayeen mardaanu de ciidanku aanu ka bixin dalkiisa ciidida ka cabataabade waa gardarun runtii weey tukaraq ma ahan markii ugu horeysay ay wax ka dhacaan 2012 ay dhacdo kale ka dhacday marka maxaa xilligaas dhacdadii dhacday ay tan kaga duwan tahay hadii xuduudda la sugayo amaankooda xilligaas ilaa hadda waqti baa u dhaxeeyay warta tukaraq waa magaalo kamid ah magaalooyinka faraha badan ee Somaliland ciidanku marba meel buu tagaa goobtu tago iyo xilligu tago iyo sidoo uu tago waxa go'aamiya hogaamiyaashiisa go'aamiya waa arrin farsamo weey ugu dambeyntii heshiisyadii ay Somaliland la gashay shirkadaha caalamiga iyo waxa kamid ahaa kii imaaraadka ay la galeen bal heshiiskaas ma noo sharaxi kartaa halkuu ku dambeeyay heshiiskaas waxa ansixiyay golaha wasiirada markaa jiray iyo labada gole baarlamaan labaduba way ansixiyeen waa arrin sharciya isugu waa heshiis jira oo ma mid laga noqday ma laakiin dabcan wuxuu ka kooban yahay mashaariic buu ka kooban yahay waqti bay u baahan yihiin iyo farsamooyin bay u baahan yihiin marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan hadda inoo bilowday 2018 in ma taqaanay dhaqan galaan wixii lagu heshiiyay waxaa xoogaystay dagaalka Idlib ee waqooyiga Suuriya oo ay ahaa gobolkii ugu dambeeyay ku jiray gacanta fallaagada dagaalka magaaladii saldhigga u ahayd warshadaha ayaa dhamaaday markii dhammaan bariga Xalab laga qabsaday fallaagada waatan Sohayba Maxamed Baqas oo ka waranta dadka ku nool Xalab ayaa aroor walba ku waabariista cabsi diyaaradihii dagaalka ayaa tagay ugu yaraanna halkan train ayaa isaga kala gooshaya bariga iyo waqooyiga magaalada Xalabna waxa ay ku soo laabatay gacanta dawladda
heesta ay carruurtan iskuulleyda ah qaadayaan waxa ay ku ammaanayaan madaxweynahooda agagaarkan oo mar ay ka talin jireen fallaagada rayaan oo 12 jir ah noloshii caadiga ahayd ayaa u soo laabatay iskuulkeeda waxa gacanta ku hayay kooxda isugu yeerta dawladda islaamka ma aadin iskuulka xilligii uu dagaalka socday sababtoo ah duqaymaha iyo rag hubaysan oo ku jiray dhismaha iskuulka marka ma jirto wax aan baranay maalmihii u dambeeyey ee dagaalka xaaladda magaalada sidan ayay ahayd waxaana jira dhismayaal ay dhulka la simeen diyaaradaha dagaalka ee Suuriya hadda ammaan ku filan ayaa jira oo ay dadka dib ugu soo laaban karaan qaliil waxa ay ka mid tahay dadkii ugu horreeyay ee dib ugu soo laabtay xaafadahooda waxa ay ka soo laabatay goobo ay gacanta ku hayeen kooxda isugu yeerta dawladda islaamka waxayna timi gurigan yar ee biyaha iyo koronto la'aanta ah aad ayay u adkeed in aad aragto waxyeelada waxaan dib ugu dhisaynaa si tartiib ah markii aan helnaba wax yar oo lacag ah intan ayaa ka soo hartay meel bari ahaan jirta goob warshado oo ku taal cirifka magaalada ahaydna halbowlaha ganacsiga Suuriya weli halkan dagaal ayaa ka jira jiida horena 100 mitir oo kaliya ayay u jirtaa Basel Nasri warshadiisa dhibaato ayaa soo gaartay fallaagadana waa ay bililaqaysteen tiro yar ma ogiye ilaa iyo 1 warshadood oo halkan ku yaala ayay waxyeello soo gaareen lacag badan ayaa ku baxaysa balse waa inaan dhahnaa waxaan u baahannahay in dalalka oo dhan ay qaadaan xayiraadaha in uu dhammaado dagaalkan muddada dheer ka socday magaaladan qadiimiga ah ayaa ah mid ay maslaxad ugu jirto madaxweyne Asad 1 sano kadib weli dagaalka ma dhammaan dad badanna wax walba waa ay lumiyeen magaaladan weynna sidii hore inay ku soo laabato ayaa aad u adag faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaali adigoo mobilkaaga ka galaya bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta muranka u dhaxeeya Turkiga iyo Mareykanka ayaa hadda meel fog sii gaaray Ankara ayaa sheegtay inaysan ku qanacsanayn beeninta Washington ee ah in ay ka dhisayso waqooyiga Suuriya ciidamo Kurdiyiin u badan oo xadka ilaaliya wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa uu sheegay in qorshahoodu si qalad ah loo sharaxay dhinaca kalena Turkiga ayaa ciidamo soo dhoobay xadka u dhaxeeya iyaga iyo Suuriya 52 ruux ayaa lagu dilay oo ku dhimatay waqooyiga Kazakhstan markii bas ay saarnaayeen uu dab qabsaday shilkan ayaa ka dhacay gobolka Oktoobar 5 ruux oo kaliya ayaa ka badbaaday dadka waxyeelada soo gaartay ayaa la aaminsan yahay inay dhammaantood ahaayeen muwaadiniin Uzbekistan ah oo Ruushka u safrayay wasaaradda arrimaha dibadda Uzbekistan ayaa diblomaasiyiin u dirtay halka baska ku gubtay si ay u caawiyaan booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku yimaado Britain tan iyo markii talada dalka uu la wareegay ayuu kula kulmay ra'iisul wasaaraha waddanka UK isaga oo loo sheegay in 60 milyan oo dheeraad ah lagu qorsheynayo in lagu sugo ammaanka xadka si loola tacaalo muhaajiriinta joogta Faransiiska ee doonaya inay soo galaan Britain Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka waramaya goobtan kaale u dhow ayaa waxaa loogu yeedhi jiray intii dhowaan ahaydba kaynta waxaana ay tahay xero qaxoonti oo ay isdhex qaadayaan qaxoonti asal ah iyo qaar dhaqaala doone ciidamada Faransiiska ayaa 2016 halkan baneeyay oo dadkii ka saaray laakiin imika waxaa loo malaynayaa in ilaa 700 oo cusub oo soo galeetii ay ku nool yihiin dawladda Britain ayaa ballan qaaday in 60 milyan oo dollar ku kharash gareyn doonto ilaalinta xadka iyo nabad sugidda waxa kaloo ay sheegeen inay halkaas ku xiri doonaan xayndaab adag isla markaana lagu rakibi doono kamaradaha dadka sheega kuwaasi oo ay saaran yihiin waxa la yidhaahdo infrared technology kulan madaxeedkan Faransiiska iyo Britain ka dhaxeeya lagama hadlayo arrimaha soo galootiga kaliya laakiinse waxa laga hadlayaa arrimaha ku saabsan xagga nabadgelyada Yurub iyaga oo Ingiriisku helikobtaro u diraya dalka Mali si ay u caawiyaan dagaalka lagula jiro kooxaha Islaamiyiinta ah Britain ayaa diraysa 3 helikobtar oo nooca la yiraahdo Genhawk kuwaasi oo ah qaar aad u waaweyn oo ciidamo badan qaadi karaya dawladda Faransiiska ayaa dhankeeda iyaguna waxa ay caawin doonaan ciidamada
britain ee jooga dalkaasi estonia oo ah jamhuuriyad ku taalla baltiga oo laga baqayo khatar ka timaada xagga ruushanka ka bixitaanka midowda yurub ee ay ka baxayaan britain ee la yidhahdo brexit ayaa iyadu aan ku jirin ajandaha laakiin haddana waxa weeye arrin qof waliba maskaxda ku hayo fursadda ugu fiican May waa xiriirka difaaca waxayna ku dhihi kartaa sideen xiriir dhow oo difaac ku yeelan karnaa aad xumaynaysaan xiriirkeena dhaqaale ee mustaqbalka xidhiidhka ka dhexeeya labadan mas-uul ayaa wuxuu ahaa mid ku dhisan xurmo iyo isqadarin markii ay ku kulmeen dalka Faransiiska waxaana la doonayaaba layidhi inay dadka tusaan in labada dal ee ugu awoodda militari badan galbeedka Yurub ay wada shaqayn karayaan mustaqbalka markana wararka ciyaaraha caawa koobka Del Rey Real Madrid iyo Leganés ayaa wada ciyaaraya Messi ayaa la gafay rigoore iyadoo Barcelona xalay ay la kulantay guuldaradii ugu horeysay ilaa iyo Agost ciyaartii dhaxmartay iyaga iyo Espanyol Messi waxa rigoorada ka qabtay gool haya Diego Lopez midii laga soo ururiyay London ayaa loo bedelay biro dadka birahan ka sameeyay midiyaha ayaa ku rajo weyn in ay dareensiiyaan dhalinyarada khatarta ay leedahay dhaqanka midiya sidashada balse tani isbedel ma keeni doontaa Naciima Maxamuud ayaana inooga waramaysa warbixintan jimkan oo laga sameeyay midiyo la dhalaaliyay ayaa waxaa laga aruuriyay dhalinta suuqa ulajeedada jimkan ayaa waxay tahay in la bedelo dhaqanka midi qaadashada dambiyada midi qaadashada ee London ayaa waxay maraysaa heerkeeda ugu sareysay muddo 7 sano ah bil kasta booliiska waxay ka qabtaan wadooyinka midiyo badan hay'ad samafal ah oo la yiraahdo geesiyaasha birta ayaa waxay doonayaan in midiyaha loo bedelo astaan wanaagsan oo loogu talagalay xaafadaha dambiyadan ay ka dhacaan dhalinyaradu ma arkaan qaadashada midiyaha wax naxdin leh waxaannu rabnaa inaannu fakarkaa beddelno magaalada London iyo guud ahaan dalkoo dhan kama jiraan goobo ay dhalinyaradu ku jimicsadaan oo jidhka ku dhisaan midiyihii la dhalaaliyay ayaa waxaa laga dhisay jim loogu talagalay dhalinyarada oo ku nool Tower Hamlets oo ku taalo bariga London sawiro moobilka lagu qaaday oo video ah ayaa muujinaya dhalinyaro isticmaalayso jimka ma u baahna inay bixiyaan tababarka gaarka jimicsiga mana u baahna inay lacag ka bixiyaan xarunta jimicsiga waxay heli doonaan mid bilaash ah tababarayaasha xagga internetka ayaa waxaa ka mid ah Derek Twum oo 10 sano oo xarig ah ku soo guday dalka Mareykanka maxaa ku kalifay dhalinyarada inay midi qaataan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inuu qofku dareemo inuu is ilaalin karayo markaad muruqyadaada dhisteed aragto muruqaagii xooggan waxaad dareemaysaa kalsooni markaasi waxay keenaysaa taasina inaad wax midiya ama huba qaadanin dhalinyarada waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu caawin karo waxaa ka mid ah sidii midiyaha iyo suuqaba looga kaxayn lahaa iyaga oo jidhkooda dhisa oo goobaha jimka gala layligaas waxaa waaye jimicsi ay dhalinyarada wadooyinka ku ciyaaraan oo loogu talagalay in murqaha lagu xoojiyo jimicsiga waxay u noqonaysaa wax sidii balwadoo kale ah markaa mar kasta oo xitaa markay hurdaan way ka fikirayaan taasina waxay keenaysaa in qofkii ay u noqoto wax weyn oo qiimo leh haddii aad caraysan tahay ama aad doonaysid argoosi dadka aniga oo kale ah halkan ayay imaan karaan si ay u guulaystaan geesiyaasha birta ayaa waxay ku dhiseen jimka si bilaash ah way adag tahay in la yiraahdo jimkan wuxuu bedelayaa dhaqanka dhalinyarta midida qaato hase ahaatee kooxdani waxay ay ku rajo weyn yihiin inay hawshooda sii wadaan ugu dambayntiina xayawaanka magacyadan leh loo yaqaano xidig dhul ama kuuley ayaa loogu magac daray Philipis oo ah nin dabaasha Olombikada ku tartama xayawaankan ayaa laga helay buuraleyda Scotland waxaana la geeyay xarunta xayawaanaadka halkaasi oo lagu ogaaday in aysan lugihiisa dambe aysan socon karin biyar ayaa la geliyay si murqihiisu u dhismaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa inta aan kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa habeen dambe saacadan oo kale aniga iyo asxaabtaba waad ku mahadsantihiin daawashadiina ee sidaas iyo nabad gelyo